بسم الله الرحمن الرحيم. maantana waxaan ka bilaabaynaa cutubka koowaad casharkiisa koowaad wuxuu noqonayaa what is biology. Biology maxaa la yidhaahdaa? Biologygu is a branch of natural science. waa laan ka mid a natural science-ka that deals with midkaasoo xiriir la leh the study of living things, barashada waxyaabaha nool. waa maxay biology haddii lagu yidhahdo? waa labada safar koowaad. It's a branch of natural science. waa laan ka mid a sayniska dabiiciga ah that deals with midkaasoo xiriir la leh the study of living things, barashada waxyaabaha nool. The sayniska which deals with midkaasoo xiriir la leh the study of living things, barashada waxyaabaha nool and their life process iyo hababka noloshooda ay maraan. Iskooled waxaa lagu magacaabaa biology ayaa la yidhaahdaa. intaas waa iska sharaxaad. already labada saf oo hore qeexitaanka waa the sayniska which sayniskaasoo deals with xiriir la leh the study of living objects, barashada waxyaabaha nool and their life process iyo habka ay maraan. Iskooled waxaa lagu magacaabaa biology la yidhaahdaa. The word biology, ereyga biologyna is derived from waxaa laga keenay two Greek words. laba erey oo Greek ayaa laga keenay waaye. Bios oo loola jeedo which means life, nolol ayaa loola jeedaa. Logos which means waxaa loola jeedaa iyaduna knowledge, aqoon or study ama daraasayn ama barasho. Biology labadaas erey bios iyo logos. Bios maxaa waaye? means life, waa nolol. Logosna means maxaa waaye? knowledge waaye. haye branch of biology, laamaha biology. branches of biology, laamaha biology. branches of biology, laamaha biology. Biology maadada la yidhaahdo is a broad science, waa science ballaaran. ereygaas broad iska fiiri. broad science waa science ballaaran. that science-kaas has many branches, wuxuu leeyahay laamo badan. there are waxaa jira two major branches of biology, laba laamoodo waaweyn. there are waxaa jira two major branches of biology, laba laamoodo waaweyn ayaa jira. and they are waxayna kala yihiin kow botany. botany wax la yidhaahdo botany maxaa waaye? is a branch of biology, waa laan ka mid a biology-ga which deals with midkaasoo xiriir la leh the study of plants, barashada dhirta. soo ma jeed marka cilmiga dhirta lagu barta ayaa botany loo yaqaana. is a branch of biology, waa laan ka mid a biology-ga which deals with midkaasoo xiriir la leh the study of plants, barashada dhirta. waa zoology maxaa waaye? zoology waxaan leenahay iyaduna is a branch of biology, waa laan ka mid a biology-ga which deals with midkaasoo xiriir la leh the study of animals, barashada xayawaanaadka waa iyadan. already marka soo koob, botany maxaa waaye? botany waa barashada dhirta. zoology maxaa waaye? zoologyna waa barashada xayawaanaadka. qeexitaankiisa eeg marka. botany marka waxaan leenahay is a branch of biology, waa laan ka mid a biology-ga which deals with midkaasoo xiriir la leh the study of plants, barashada dhirta. zoologyna maxaa waaye? is a branch of biology, waa laan ka mid a biology-ga which deals with midkaasoo xiriir la leh the study of animals. labada laan waaweyn intaas waa. already marka fiiri, some branches of biology ayaa jiro, qaar ka mid a laamaha biology ayaa jiro and their definitions iyo qeexitaanadooda. already marka laamakan markaad fiiriso waxay hoos imaan doonaan labadan xaba bas. botany iyo zoology midkood ayay noqon doonaan. simple hadda fiiri. morphology maxaa waaye? morphology waa cilmi la barto waaye. waxaa lagu bartaa qaabka kore ee noolaha, oogada sare ee noolaha lagu barta. fiiri, morphology maxaa waaye? it is study of external features of an organism, waa oogada sare ee noolaha in la barto. already markaad noolaan baranaynaa, nool markaan baranayna labadaas midkoodoo noqon kara. animal wuu noqon karaa, plantin wuu noqon karaa, labadaas midkoodoo noqon kara. haye cytology maxaan leenahay? cytology is the study of cells, waa barashada unugyada. is the study of cells, waa barashada unugyada. cilmiga unugyada lagu barta cytology loo yaqaan. haye unug maxaa waaye? waxaas ayadu waa daraaso kale. histology maxaa la yidhahdaa asiga? number 3. histology waxaan leenahay isaguna is the study of tissue, waa barashada nudayaasha. waa barashada nudayaasha ayaa la yidhahdaa. haye morphology maxaa waaye? isaguna morphology maxaa waaye? waa number 4 aya. morphology waxaa waaye is the study of microorganism, barashada noolaha ilma aragtada ayaa loo yaqaana. haye anatomy maxaa waaye? isiguna anatomy waa anatomy iyo morphology waxaan hadda usu fiiris waa iskaga dhowiin. morphology waa external, laakiin kan maxaa waaye? internal waa fiiriya.
anatomy waxaa leenahay the study of internal structure waa qaab dhismeedka gudaha in la barto soo ma qaab dhismeedka gudaha in la barto hab dhisyadii systemyadii waxaas oo dhan waxaa la yidhahdaa anatomy soo ma jeed anatomy haye physiology maxaa loo yaqaanaa physiology anatomigan siduu u shaqeeya physiology lagu bartaa anatomy waa qaabka gudaha bas laakiin physiology maxaa siduu u shaqeeyaan baranayna markaas physiology waxaa leenahay the study of different types of body function noocyada kala duwan jirka siduu u shaqeeya ayaa lagu bartaa isaguna intaas ayaa lagu bartaa reedi marka waa soo koobaynaa waxaan leenahay biology maxaa la yidhahdaa biology waxaa leenahay branch of natural science waaye that deals with the study of living things intaas waa what's biology dil yiraahdo inta laga keenay bios means life logos means knowledge haye branchiyada laamaha waaweynka shaaka dil yiraahdo waxaa leedahay waa botany iyo waxaa la yiraahdo zoology laamaha waaweyn iyo laamaha yar yarka intaas ka soo bara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.